بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني مد الصومالية ميلي جوكتبا وإذن سلام هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إناد وقاتان inaan aad iyo aad uga xumaaday dhib weyn ay noo geysatay qalbigayaga u geysatay dhibaatadii ka dhacday magaalada Xamar iyo Afkooy dhexdooda oo lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo waxay bixiyeen ay jirin lagu qarxiyay iyo xataa dad ajnabi oo Turki qaarkood ah. Arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh markii koowaadna ma aha marka la qarxinayaa dadka sabaanada tan oo dhan fidno iyo balaayan ku dhex jiray fidnada iyo balaayadana waxa keena ciqaab weeye Ilaahay uu ku ciqaabayo dadku markii uu sidii la rabay u socon waayo oo diintiisina sidii la rabay u haysan waayo asaguna sidii la rabay isu dhowri waayo مسلم شيغانيا marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa asaabakum musiibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wax kasta oo musiibaha oo idin ku dhaca waxaad adinku gacmihiina ku geysateen weey waliba markaas in badan la idin ka cafiyaa buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala musiibada nagu dhacaysa marka dhibaato aan geysanay weeye haatan ma ayan bilaaban mar hore soo bilaabatay oo muddo soo jirtay sida kaliya oo ay ku bixi kartaan waxa weeye Ilaahay in loo soo noqdo oo laga daayo dadka la leynayo dadka laga daayo iyo dhigooda la xalaaleystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an qofkii naf gooya ayadu waxba dilin oo aan markaas dil ay gashay daraadeed loo dilaynin fa kaanama qatala naas jamiican dadka Ilaahay abuurtay oo dhan asagoo laayay buu la mid yahay baa Ilaahay yiri waman ahyaaha fa ahya naas qofkii nooleeyana isagoo nooleeyo buu la mid yahay Ilaahay sidaas uu yiri quraankiisa ku yiri dhanka kale Ilaahay wuxuu yiri dadka Ilaahay halaynina إلهي دتكيسا هلاynina إلهي كبقى oo ka cabsada oo halaynina dadkiisa dadka iska daayay si qaab darra xoolaha in loo laayaa ayaan Ilaahay ogolayn marka dhibaatadaas dhacaysa Ilaahay in loo toobad keeno weeye hala toobad keeno ayaan leeyahay dadka waxaan ku leeyahay la toobad keeno Ilaahay subhanahu wa ta'ala man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'an qofkii naf dila oo gooya naftaas oo aan mid loo xugmiyay dhibaato ay geysatay aan ahayn oo sharci loo xugmiyay faka'annama qatala an-nas jami'an dadka oo dhan qof laayay buu la mid yahay qofkii nooleeyana sidaas oo kale weey marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa Ilaahay in loo soo noqdo Ilaahay in la baryo sida ay kala yihiin duqeyda dhalinyarada ganacsatada ciidamada beedankeeda leeyahay ardayda dugsiyada dhigata dhamaanba in inta kooxo la qabto 114 goor quraanka la akhriyo Ilaahay la baryo leeyahay Ilaahu balaayada naga qaad oo loo soo wada jeesto Ilaahay ayaan kula talinaya meel kasto ay ka joogan dalka gobol kasta iyo degmo kasto ay degan yihiin degmo aan u baahnayn iyo gobol aan khayr u baahnayn ma jiree waxaan idin kula talinayaa quraankii 114 u soo noqdo oo akhriya u fariisiyo culumo 10 20 15 30 waxay doonaan ha noqdeen
114 goor baa la akhriyi karaa quraanka haddii culimo badan loo fariisiyo culimadu ha akhrido haweenka quraanka yaqaan ha akhriyeen dhalinyarada quraanka taqaan ha akhrido ciidamada quraanka dadka yaqaan ha akhriyeen duqeyda quraanka taqaan ha akhriso ilaahay aan soo noqono quraankiisa aan akhrino oo ilaahay aan tawakkalno ilaahay aan tawakkalno وتوكلوا على الله إلهي توكل يا ليري إلهي أن تلا سارنا أن توكلوا أيان له ملكستو أن شوقنا فدنا عن إسكدين فدنا عن إسكدين شعبك الصوماليات وحنو سوتشيدين إياه إن أي مذوبانو مذوبان فدنا حيسته سيدي يوبح الحياة عدة فدنا أسكو سماينيسا أما الله ينيسا أما بابينيسا إني مل وسود تشستان أيان سوتشيدين إياه inayan noqonin dad aan muxuu ahaa iska warqabin oo maalin walba meel lagu qarxinaayee dad iska warqaba oo ilaahay ka baqaya oo cidda fidnaynaysana iska qabanaya inay noqdaan ayaan rajaynayaa oo saasan kula talinayaa kulligeena in la isu yimaado haddee duqeyda dhalinyarada haweenka ganacsatada guddiyo inta la samaysto ilaahayna in laga boqo meelna looga soo wada jeesto wixii fidnaynaya oo qarxinaya oo baabiinaya dalka jajabinaya guryaha madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxaa xaqiiqo ah inay hayaan dadaal caalamka iyo qaramada midoobay laga aqoonsaday dadweynaha Soomaaliyeedna way ku kalsoon yihiin dadaalkaas intooda badan dawlad goboleedyadana ayana waa dadaalayaan haddaba waxaan ku talinayaa in inta gacmaha la isqabsado shacbiga iyo dawladduba dalka horumarintiisa laga shaqeeyo si joogto ahna loo wada socdo si looga baxo dhibaatada muddada tirada badan aan ku soo jiray oo dhinac walba naga haysata dalkuna uu midoobo koonfur iyo waqooyi iyo qoraxsin intaba cafisna hal iscafiyo oo ummaddu ha isku daydo inay iscafiyo hanti dadku leeyahay cidii haysataana haday guri tahay haday wax kale tahana ha celiso cidii lahayd oo ilaahay ka baqdo adduunka la joogi maayo waa la tagayay saas ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaanan ilaahay uga baryayaa aniguna quraanka aan akhriyo 114 markaan akhriyo ilaahay baan baryaa oo waxaan ka baryaa ilaahay culayska inuu ka qaado dalka iyo dadkaba dalkiina annagoo nabada inaan ku noqono wixii aan uga soo qaxnay waxay ahayd fidnadaas dhacaysa ayay ahayd inaan ku noqono ayagoo nabada dadka dad khayr qaba na inuu ummadda ka dhigo ilaahayna dejiyo ilaahayna ay ka baqaan oo u soo noqdo ay noqdaan ayaguna dhexdooda ay iscafiyaan fidnad dambe iyo baaba dambena aan la isu geysan baan ilaahayna ka baryaynaa ummadana u soo jeedinaynaa inay ilaahay baryaan oo 114 quraankaana akhriyaan sidaasna ilaahay ku baryaan ayaan soo jeedinayaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.